subaxnimadii 5 Juulaay 2017 wuxuu isticmaalayay laptopkiisa asagoo oo jooga guriga ku leeyahay xaafad aad loo ilaaliyo oo ku taala Bangkok wuxuuna waqtigaasi ku jiray shaqadiisa online-ka 1002 ee uu ka sameeyay lacagaha malaayiinka dollar laakiin si lama filaan ah ayuu u maqlay shanqarka yeertay albaabkiisa gabar wadatay gaariga Toyota ayaa waxay ku dhufatay ganjeelkii ridda hore ee gurigiisa shaqadii waqtigaasi u fadhiyay ayuu ka soo kacay wuxuuna soo aaday dhinaca albaabka si uu ogaado wax meesha ka dhacay meeshaas ayaaba lagu sugayay oo waxa uu ku dhacay dabankii loo dhigay gabadha gaariga wadatay waa askari FBI DEA-da iyo FBI-da fursadan waxay sugayeen muddo aad u dheer inay gacanta ku dhigaan The King of Dagware sirdoonka 7 dowladood ayaa iska kaashaday soo afjarida iyo soo qabashada 26 jir asaasay mid ka mid ah website-yada ugu halista badan internetka bilowgii 2010 Dagware aad looma isticmaali jirin oo dadka badankooda ma aysan aqoon magaciigu waa Diin Xuseen Shacab halkana waa kanalka iftiinka kusoo dhawaada daawadayaal muuqaalkeena maanta haddaba intaan gudaha u gelin muuqaalkeena waxaan sharaxaad kooban ka bixinaynaa dark web waa qayb ka mid ah internetka halkaas oo lagu sameeyo adeegyo kala duwan oo aan lagu isticmaali karin internetka casriga ah ama service web waa meesha ugu badan ee ay ku kulmaan ganacsigoodan ku kala wareejistaan dambiilayaasha ama drug dealerska dark web waxa uu leeyahay webyo kala duwan oo si online ah wax lagu kala gato sida hubka sharci darrada xubnaha jirka bini'aadamka daroogada iyo macluumaadyada la soo xaday oo ay ka mid yihiin karakaadyada sidoo kale meeshan waxaa si joogto ah u soo booqda hackeriska lacagta kaliya ee dark web ka shaqeysa ama wax lagu kala gato waa cryptocurrency sida Bitcoin 2011 Skillerab wuxuu ahaa mid ka mid ah webyada ugu waaweyn ee dark web waxaa loo isticmaali jiray in lagu kala gato daroogada iyo hubka October 2013 FBI-da waxay soo qabteen asaasiga webkan waxaa lagu xukumay xabsi daa'in si loo soo afjaro Skillerab laakiin meeshaasi kuma aysan istaagin kala iibsiga daroogada iyo isticmaalka dark web July 2014 nin isku magacaabay 1002 ayaa waxa uu dark web ka dhex furay web uu bixiyay Alphabay 5 bilood oo hawada ku jira webkan waxaa laga dhaxelayay karakaadyada la soo xaday hubka sharci darrada ah waxaa dib loogu soo siyaadiyay daroogada iyo lacagaha la dhaqo ama money laundering waxyaabaha mamnuuca ka ah abkan ama looga ogolayn Alphabay waxaa ka mid ah inaan lagu dhex iibin karin xubnaha jirka ciyaalka xadista macluumaadyada bangiyada ku yaala waddanka Ruushka haddaba 1002 ninka isku magacaabay oo ah aasaasaha webkan wuxuu jahwareerinayaa FBI-da si ay ugu maleeyaan inuu yahay nin Ruushiyaan ah ama ku nool waddanka dibadiisa webka Alphabay qaab ahaan wuxuu samaysan yahay sida Amazon oo kale adigoo online wax ka iibsanaya lacagaha wax ku gadanayso waa inay ahaadaan Bitcoin, Monero ama Ethereum muddo kooban gudahood Alphabay wuxuu noqday webka ugu soo booqashada badan dark web isticmaalayaashan waxay kor u dhaafeen 20,000 oo qof 40,000 oo jeerna waxyaa lagu kala gatay 2017 300,000 oo bardhigti ayaa laga dhaxelay gudaha webkan 1002 oo ah aasaasaha webkan wuxuu noqday milyaneer hantidiisana waxay kor u dhaaftay 10 milyan oo dollar waa muddo 2 sano oo kaliya ee webkan samaysan yahay kooxaha dambibaarista Mareykanka waxay baadigoob ugu jireen su'aalada shakhsigan asaasay webkan dambibaarayaasha waxay awoodooda dhan isugu geeyeen su'aalada ninka la magac baxay 1002 iyagoo isticmaalayo dhammaan IP address lagu isticmaalo webka Alphabay ciwaan walba wax lagu kala gatay laguna gaday webkan baaritaan ay ku sameeyeen December 2016 Robert Miller sargaal u qaabilsan kiiskan Alphabay asagoo kombiyuutarkiisa dul fadhiya ayaa waxa uu soo dhacay email soo dhaweynaa welcome to Alphabay kadib markii uu ciwaan ka dhex samaystay webkan qof walba uu ciwaan ka dhex furtay webkan si automatic ah waxa uu soo dhacaya emailkaasna wuxuu ka imaanayaa aasaasaha webkan dambibaarayaasha hadda wada ayaa u furmatay waxayna baarayaan magaca emailkaas sidan ayuu u qornaa
binalex91@hotmail.com. waxayna soo heleen magaca alex inta qof ay ku isticmaashaa social media sida Facebook iyo iimaylada kala duwan. sawirkan ayayna soo heleen. helitaan kadib waxay ogaadeen in iimaylkan lagu isticmaalay Bible meelo kala duwanna wax lagu kala gatay. magaca qofka iska leh iimaylkan waa Alexander Cassis. hadda waxaa la helay magaciisa iyo sawirkiisa. laakiin su'aasha xaguu joogaa ninkan? Results of what they call the largest international operation. waxay soo ogaadeen inuu ganacsiyo ku leeyahay waddanka Canada, waliba gobolka uu ka soo jeedo ee Quebec. waxaa Canada ugu diiwaan gashan inuu ka shaqeeyo software designer. wuxuu leeyahay company la dhaho Xbox Technologies. dambibaarayaasha Facebook waxay soo heleen sawir asaga iyo saaxiibadiisa. gabadhaasna waxay u dhalatay Finland. markaas waxay xaqiijisadeen inuu joogo waddanka Finland, Bangkok. kiiskan waxaa iska kaashaday 7 dowladood, laakiin qabashada ninka ma sahlana. meesha uu degan yahay iyo gaariyaasha uu ku socdo ayaa la soo helay. qabashadiisana waxay la sugayeen fursad. gaari Toyota oo ay wado gabar FBI-da ayaa waxay soo aaday dhinaca guriga Cassis, waxayna si ku talagal ah ugu dhufatay albaabka gurigiisa. qayladii joogtay gaariga, shaqadii uu dul fadhiyay ayuu ka soo tagay. wuxuuna soo aaday banaanka, laakiin meeshan u fiirso. laptopkiisa ayuu kaga jiray shaqada, waxaana online ahaa oo uu ku dhex jiray webka Alphabet. asagoo aan laptopka loo garaynin ayuu banaanka soo aaday. fursadan waa mid ay la gaadayeen boodiska. markii uu ogaaday dabanka inuu dhexda kaga jiro ayuu isla markiiba la soo baxay taleefankiisa si uu loo goray webka. laakiin isla markii waxa qabtay oo ku soo booday askari. meeshaas ayaana lagu jeebeeyay. Cassis oo Canadian ah hantidiisa waxay kor u dhaaftay 25 milyan. gaariyaal qaali ah, guryo, hoteelo iyo malaayiin cryptocurrency ah. qabashadiisa isbuuc kadib 12 July, Alexander Cassis wuxuu isku dhex dilay xabsiga. meeshaasna waxaa lagu soo afjaray boqorka, the king of dark web. waxaan hawada laga saaray webka Alphabet. Today, the Department of Justice announces the takedown of the dark web market Alphabet. This is the largest dark market web place takedown in world history.